gudoomiyaha safarku maqnaa muddo gobolka Sanaag halkaas oo shaqooyin ka soo qabanayeen sidii waqti balaaran hogaaminaya isku jira xildhibaano iyo wasiiro waxaan ku soo dhaweynayaa soo dhaweyntiisa qaybaha kala duwan ka qayb galaya mudane gudoomiyaha hore degmada Garowe Boosaaso mudane Cabdiqaadir rahiim mudane gudoomiye iyo mudanayaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib mudane gudoomiye waxaan halkaan u taaganahay haddaanu nahay bulshada ku nool degmada Garowe soo dhaweyntaada iyo farxadaada iyo nabadayntaada iyo goobihii oo tagtay aad door muhiim ah ka muujisay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aad iyo aad baan ugu soo dhaweynaynaa waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay oo kale waxa weeye maatinka aad soo noo timi muddadii aad hawshaa ku maqnaydna waxaan soo gaaraysay ama baraha bulshada aanu ka arkaynay hawlqabad wanaagsan iyo diyaar garow si cadowga mar kastaba jecel inuu soo hujuumo inuu soo galo dalkeena soo galo sida aad ugu diyaar garoobay oo meel kasta diyaarka loogu yahay sidii looga hortagi lahaa gardarrada iyadaana midaynu qaadan karno iyo mid inoo cuntami kadha ama inoo qalmi kadha ma aha geesiyaashii aad ka timi waxaanu jecelnahay inaan hawada u marno salaan iyo bogaadin kuwii ka soo xorooday gobollada Somalilandna iyagana bogaadin iyo hambalyo ayaan u jeedinaynaa adiga iyo wafdiga waxaan ku soo dhaweynaynaa si kaliya laaba iyadoo aanan u kala harin oo rag iyo dumar yar iyo weyn halkaan bulshadii qaybo badan oo matalaya ay ku dhan yihiin aad iyo aadna waxaan ula soconnay sida Cabdiqaadir sheegay dhaqdhaqaaqa xagga aad ka waday adiga iyo wasiirka amniga wasiirka waxbarashada wasiirro badan oo kale iyo xildhibaanaba dadkii muxuu ahaayay ka dhiidhiyey inta la yiri orada caasimaddiinni gubo dadkiinni laaya saraakiishii ka dhiidhiday iyo ciidankoodii ka soo baxayna hambalyo iyo salaam baan u direynaa way isxoreeyeen waxayse ku hadhay reer Sool bay ku hadhay runtii reer Sool bay ku hadhay iyagaan doonaynaa inay muxuu ahaayay iyagoona sidaas walaalahood ku daydaan iyagoo weliba yidhi annagaa wax idinka difaacayno korontiga tegayna ordada dhirada oo sida isu dhaama ayay yidhahdeen annaguna saasaana ku dhiirigelinaynaa inay moogtahay guddi bay hadda saareen waan la socdaa waa shireen waxbay dhaqaajinayaan insha allah waxaan rajaynaynaa qabiil ma haysan karo dad qabiilna qabiil kii ugu yaraabaa haysan waaye loo maaro waaye marka qabiilna qabiil kama adka waxa weeye godiya ima goyseen haddaan go'ay kugu jirin baa meesha taalla go'aas ka jiyana waa in laga soo moogtahay farowgeed la qabta si looga fadcelin lahaa soo dhawow gudoomiye waa lagu baahnaa halkan waa laga baahan yahay tafadal qalbi halkan isugu yimid ururadii haweenka ururadii dhalinyarada aqoon-yahankii siyaasiyiintii iyo waxgaradkii ku sugnaa caasimadda Puntland ee Garowe iyagoo soo dhaweynaya gudoomiyaha baarlamaanka iyo wafdigii uu hogaaminayay iyagoo ku qanacsan shaqadii sharafta lahayd ee uu soo qabtay gudoomiyaha baarlamaanku loona soo dhaweeyay maanta soo dhaweyn haliyay soo guuleystay gudoomiyaha waxaan leenahay ku soo dhawow caasimadda Puntland ku soo dhawow shacabkaagii oo kugu faraxsan kugu qanacsan hawshii aad soo qabatayna ay raali gelisay waxaan leenahay marka ku soo dhawow intaana waxay bannaanka u taagan tahay in adiga ku soo dhaweeyaan gudoomiyaha iyo wafdigiisa iyo inta soo dhaweynaysa salaanta islaamkan ku salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanka bacdi gudoomiyaha iyo wafdiga uu wado ilaahaydii waxaan ku soo dhaweynaynaa bashbash iyo barwaaqo iyo kal iyo laab baan ku soo dhaweynaynaa xiise badanna wuu qabnay sidii odayaashii hore oo hadla ay yiraahdeen intii uu tagay oo gobolada ugu tagay oo dalka difaaciisa heegan u noqotay iyo intii uu ka yimi iyo intii la socotaba hambalyaanu salaan kal iyo laabaan hawada u marinaynaa allah idin garab galaan leena way idin la jirnaa baan leena dadka hadda waddanka soo joogay waa walaalaheen waa la isku keendiraya annagu ku duuli mayno colaadna uma hayno laakiin haddii la isaga caal waayey hadda waa la isyaqaano nin wax kama tari karo reerna reer kuma duuli karo sida uu yidhi gaashaanna qolada Soolna reer Soolna waxaan leenahay walaalihii ku daydo boorka iska dafo way idinla jirnaayo waa wada jirnaaye boorka meesha ka kaco musabbixi iyo raggiisa ummadda kale waxaan oranaynaa waddanka laga xoreeyo xaashaa lillaah Soomaali waa Soomaali iyana waa maamul goboleed meel kale ma jiraan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh soo dhaweyntan xafladda waa mid nooga duwan haddaan haweenka nahay soo dhaweynihii hore aan soo dhaweyn jirnay waa mid guul ah waa mid aan ku ammaanayno gobolka Sool iyo gudoomiyaha shaqada wanaagsaneed ee qabteen
annaguna aanu mar walba sanaagana gobolka sanaag aan ku ammaanayno iyo shacabka ay shaqada ay qabteen waana garab taaganahay waana soo dhawaynaynaa mudane gudoomiye haddaan nahay shacabka reer Puntland khaasatan Garowe gabdhaheedina aan nahay garabkiina taaganahay guushuna waa inoo taala على أمور الدنيا والدين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أخيارتنا هل كنت هاجن أو وزير هره يا قدوميال يا عقال يا من قربات يا حوان هذا الشرف بدن أنت بره وحكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب آدي بان وقام هاد علينا يا سودوين تان قروح ذا بدن أنا هذا مددن بانو قاذي شعب كده وكفر أحسن شعب هلا حتى حلبنا دي واحد بدنا مشيقين صوب حيو مشيقين وصفر كيو دق بوسكاها رنتينا هوشانو هاينا كمان ما عندنا وينو باهنا إذا واحد صوق لي فردي دستوري قاها وبرلمانك وبريو خميس يا جماعة كرينا جحيان سبت سنة فرم دونا تاسا يا كلفتين عن قصة بحنا يا هول نوباهن يا شغال نوباهن بانو كنمي لكن واحد كفر أحسن هاي السوريين كانوا وانو وجنمي dadkiina diyaar bay ahaayeen oo shacabkii baa diyaar ahaa oo helana runtiina wax badanna shaqo badan baad aftigeenu haysaano dadka niyadda u dhisaysaan niyadiska social media iyo TV-yada iyo meel kasta moraliskiinaasi wax weyn weeye takare reer sool ma harin way ku jiraan hadda shaqadii waa bilaabeen waana socotaa insha Allah nimankaana waxaan rajaynayaa iska daa reer soole dadkii ay iyagu ku xisaabtamayeen oo ay lahaayeen isku qabiil baan nahay baa xataa bannaanka taagan oo bannaanka ka taagan oo ay qaybna weerarayaan qaybna laynayaan marka dee waxaad aragtaa inay Muuse Biixi iyo dulkiisa dawladda si aan karaynin marka insha Allah inaguna waxa weeye heegan baynu u nahay dalka inaga leh inaan difaacano isku duubnaano meel wada jeedno cidii shaqo fiican qabato loo hambaliyeeyo cidii kale la dhiiri geliyo واجبنا وضع سارن ويه هذه بان نكون مهد علينا إن شاء الله مرة بعد مر صدحات وأنا مع سنتين وهذا بالله توفيق.